السلام الله عليكم وعنو ونكسن داوضيال إدلاهانتين باكو سو دوادا ورركا سومالي نيوز 724 قضبادا ورركا عاندنكو وهيننا وحا كاميدا فافاهينو ديرادا oo laga helaya dagaal xoogan oo ka dhacay Muqdisho Xasan Cali Khayre oo kulamo gooni ah ka wada Nairobi dawladda federaalka iyo beesha caalamka oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka Ra'iisul Wasaare Roble oo shaaciyay sababta loo furay wadooyinkii xirnaa ee Muqdisho Nigeria oo ka cabanaysa Soomaali hubeysan oo ay ku aragtay xuduudkeeda hogaamiye Kim Jong Un oo warbaahinta ka soo muuqday asagoo ilmeynayo iyo maxay tahay sababta qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa wararkeena Somali News 724 ee ku soo dhawaada fadlan haddii aad ku cusubtahay Somali News 724 subscribe sar share like tana nagu dhiirigeli si aysan ku dhaafin wararka la xiriira siyaasadda dalka iyo tan dibadaba hagaag Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maalmihii u dambeeyay kulamo kala duwan ka waday caasimadda dalka Kenya ee Nairobi ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay xildhibaano iyo senatoro Soomaali ah kulankaas ayaa ahaa mid Ra'iisul Wasaaraha uu kula tashanayay xildhibaano iyo senatarada Soomaalida ah ee baarlamaanka Kenya sida uu Xasan Cali Khayre ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka kulankan ayaa qayb ka ah kulamadii uu Khayre ku doonayay in uu ku helo kursiga u sareeya ee dalka xilli uu dhawaan shaaciyay in uu yahay musharax u taagan xilka madaxweyne ee dalka Soomaaliya waxa sharaf ah in maanta kulan wada tashi ah la yeesho xildhibaanada iyo senatarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayuu yiri Xasan Cali Khayre wuxuu intaasi ku daray waxaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee ay dadka Soomaaliyeed had iyo jeer u garab taagan yihiin doorashada dalka sida ay ogaatay Somali News Xasan Cali Khayre ayaa xubnaha uu la kulmay kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo marxaladda kala guurka ah walow uusan si cad u shaacin Khayre ayaa ololihiisa ka xoojinayo dalka Nairobi ee caasimadda dalka Kenya xilli ay ku sugan yihiin xubnaha ugu badan ee doonaya inay isku soo sharaxaan xilka madaxtinimo waana meel sanadihii u dambeysay ahayd halka laga jaangooyo siyaasadda dalka waxaa la xasuustaa in madaxweyne Farmaajo uu ololihiisa madaxtinimo ka soo bilaabmay dalka Nairobi dhamaadkii 2016 waxaase la sugi doonaa madaxweynaha xiga ee Nairobi laga soo saari doono Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa gudoomiyay shir looga hadlayay habsami u socodka hanaanka doorashooyinka iyo dhameystirka dib u eegista dastuurka dalka shirka ayaa lagu bogaadiyay heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray hanaanka doorashooyinka iyo sida ay uga go'an tahay dawladda federaalka fulinta qodobadii ka soo baxay shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ee lagu heshiiyay in dalka ay ka dhacayso doorashooyin ku qabsooma waqtigooda Ra'iisul Wasaaraha ayaa shirka ku soo bandhigay sida ay uga go'an tahay xukuumaddiisa fulinta qodobadii lagu heshiiyay ee ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho xasilooni ah isla markaana ay si caadi ah u socon doonto hawsha dawladda xilliyada doorashooyinka dalka Mudane Roble ayaa xusay in laamaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ay u diyaarsan yihiin dardargelinta fulinta doorashada amniga codbixiyayaasha sida musharaxiinta iyo maamulayaasha doorashooyinka ee ku sugan goobta codbixinta ay ka dhacayso dhanka kalena warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare geystay oo ka dhacay qaybo ka mid ah Muqdisho iska hor imaadkan oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda ayaa ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir sida ay inoo xaqiijiyeen ila wareedo deegaanka ah weerarka ayaa la sheegayaa in dagaalka uu si gaar ah uga dhacay agagaarka halka loo yaqaano Xaawa Casir oo ka tirsan degmada Kaaraan waxaana ka dhashay khasaaro kala duwan
Puntland. Ugu yaraan 2 qof oo shacab ah ayaa ku dhintay israsaaseynta dhex martay labada dhinac iyadoona ay jiraan dhaawacyo soo gaaray labada ciidan ee halkaasi ku dagaalamay. Sida ay ogaatay Somali News 724, ciidamada dagaalamayay oo ka wada tirsan kuwa militariga Soomaaliya ayaa isku haystay arrimo la xiriira muran ka dhashay dhul ku yaala halkaasi. Sidoo kalena ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga iyo maamulka degmada Kaaraan oo uu ka dhacay dagaalkaasi. dhanka kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa shaaciyay in uu ka mid ahaa muddo bil ka hor dadka shacabka ah ee dhibaatada ku qaba xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaare Roble oo ka hadlay munaasabad lagu daahfurayay wadooyinka Muqdisho ayaa sheegay in wadooyinka xirnaa ee caasimadda dalka loo furay si loo fududeeyo nolosha ganacsiga iyo isu socodka dadweynaha Muqdisho. sidoo kalena ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in shacabka Muqdisho ay muddo badan dhibaato ku qabeen xirnaanshaha wadooyinka isagoona raaligeliyay shacabka ku dhaqan caasimadda ee dhibaatada ku qabay xirnaanshihii wadooyinka. sidoo kale Maxamed Xuseen Roble ayaa tilmaamay in haatan la furay qaar ka mid ah wadooyinka welina ay harsan yihiin kuwa kale hase yeeshee shacabka Muqdisho ayaa waxa uu ugu baaqay in ay laamaha ammaanka kala shaqeeyaan sugidda amniga Muqdisho. si kastaba ha noqotee shacabka ku nool gobolka Banaadir ayaa dhibaato fara badan ku qabay xirnaanshaha wadooyinka hase yeeshee dowladda ayaa haatan furtay qaarkood wadooyinkii xirnaa. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa u muuqda inay ilmo ka qubanayso markii uu dhammaadkii toddobaadkan la hadlay shacabkiisa isaga oo uga mahad celiyay nafhurnimada ay sameeyeen. inkasta oo Kim uu sii xajiyay xukuumaddiisa dalka go'a ayaa haddana dadka falanqeeya siyaasadda Kuuriyada Waqooyi waxa ay sheegayaan in Kim uu u muuqdo mid isu muujinayo in uu yahay hogaamiye ka duwan aabihiis. isaga oo ka hadlayay dhoolatus military sabdidii ayaa Kim waxaa qaaday dareen xilli uu ciidamadiisa uga mahad celinayay jawaabtii ay ka bixiyeen masiibooyinka dabiiciga ah ee dalkaas ayna ka hortageen faafitaanka cudurka coronavirus. waxa uu sidoo kale shacabka ugu cudur daartay in uu ku guuldareystay inuu sare u qaado oo uu wanaajiyo heerka noloshooda. wahagaag halka aad warkaasi kala socoteen waa Somali News 724 oo xilli kasta idin soo gudbiya wararka la xiriira siyaasadda dalka iyo tan dibaddaba. intii aan war kan la'aan ah aan hawada ku kulmi doono sidaas iyo amaana Allah.